asxaabta waa mar kale iyo Ayub Show maanta waxaan rabaa halkan inaan kula wadaago su'aalo in badan ay weydiinayeen asxaabta ku xiran Ayub Show taasi oo ah sida ay kugu suurta gashay Ayub adigoo aad u daayar inaad ku soo biirto warbaahinta isla markaasina muddo ah 10 sano iyo wax ka badan aad ugu jirto fiilka adigoo dhinacyo badanna ka galay waxa aan rabaa inaan jawaabtaasi asxaabta maanta siiyo isla markaasina aan filayo dhammaantood asxaab badan oo ku xiran Ayub Show inay u noqon doonto dhiirigelin kuwaas oo iyaga laftigoodu ka fakaraya sidii ay u bilaabi lahaayeen waxa ay rabaan ama waxa ay jecel yihiin inay sameeyaan runtii Ayub ahaan waxaan ahaa wiil aad u daayar sanadkii 2010 markii aan ku biiray warbaahinta waxaana ahayd warbaahintu waxaan aad iyo aad u jeclaa dadyo fara badan waxaan kala kulmay hadallo kala duwan oo ah waxa tii wiil aad u daayar waqtigu aad buu adag yahay waa 10 sano iyo dheeraad ka hor way kugu adkaanaysaa inaad warbaahinta iyo waxa jeceshahay bilowdo tiknoolajiyaduna halkan ma aysan taagnayn balse go'aankii iyo wixii aan jeclaa ee naftayda ka dhex guuxayay awgeed waxa aan qaatay go'aan kaasi oo ah inaanan marnaba ka istaagin waxa aan rabo nasiib wanaag hooyadayna aad iyo aad u jecelahay ayaa ahayd qofka mar walba garabkayga taagan Allah barakeeye iyada iyo dhammaanba hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan runtii dadaal weyn ay ku bixiyaan dhismaha nafaheena oo dhan in badan waxa ay sheegi jirtay inaan ahay qof gaari kara halka uu rabo isla markaasina samayn kara waxa uu jecel yahay dadaal badan kadib waxaan ku biiray dugsigii markii aan sida ku biiray waxa la diiday 2 jeer daadaydu aad u yaray darteed iyo fiilkan ama warbaahintan oo runtii ahayd wax ay ka shaqeeyeen waqtigaasi daadoodu ay ka weyn tahay 30 40 iyo wixii la halmaala ama wixii daadaas leeg maadaama sheekada aan maanta idin soo gudbinaya ay tahay in qofku baashanka iyo waxa uu jecel yahay aanu marnaba ka harin waxa dhacday in macallimiintii dugsigaasi ay ugu dhahdaan Ayub waad yar tahay ma samayn kartid barnaamijkani kumana biiri kartid warbaahinta iyo saxaafadda balse waxaan u sheegay inay tahay waxaan jecelahay waxa dhacday inaan 3 bilood ku dhawaad ilaa 4 bilood iska dhex fadhiyay class kaasi oo aan ka diiwaan gashanin isla markaasina aan la ogolayn in aan gudaha u galo bilooyin kadib dugsiga macallimiintii joogay waxa ay sheegeen in bal aan ku biiro fasalkani iyadoo laga baahan yahay mas'uuliyad aad u weyn waayo inaad warbaahinta ku biirto adigoo aad u daayar isla markaasina bulsho aad u ballaaran aad u sheegtaa waxa ay tahay mid aad u khatar badan mas'uuliyad badan oo baahan bilooyin kadib waan dadaalay waxaan ka mid noqday fasalladii qaatay shahaadadii dibloomada ee iskuulkii la oran jiray Aidem runtii waxay ahayd taasi mid aad iyo aad iyo farxad gelisay waana sababtay inaan barnaamijkan maanta diyaariyo oo ah qof kasta oo inaga mid waxa uu leeyahay baash ama waxa uu runtii aad u xiiso geliyay inuu bilaabo sida barkeen waxay jecel yihiin inay noqdaan ciyaaryahanno khatar ah barkeen waxay jecel yihiin inay noqdaan warbaahinta dad saameyn ku leh barkeen waxay jecel yihiin inay noqdaan dhakhaatiir cajiib ah barkeen waxay jecel yihiin inay noqdaan duuliyayaal ama pilots laakiin shaqo badan ayaa ka horeysa waxaana la isku dhaafay in shaqadaasi iyo wadadaasi dheer ee loo baahan yahay in la qabto in dadka qaar caqabado badan oo ku hor istaaga ay ku joogsadaan qaarna ay hore uga socdaan kadib waxa aan bilaabay shaqo raadiskii telefishinka Home Cable anigoo isagana telefishinka 6 bilood shaqeynayay 6 biloodna sidoo kale ku shaqeynayay bilaa mushahar sanad iyo 2 bilood kadib anigoo hore uga soo samray waqti badan ku soo qaatay dugsigii Aidem ee aan ka dhiganayay kooraska warbaahinta ayaa haddana sanad iyo 2 bilood waxay igu qaadatay inaan dib u samro isla markaasina anigoo daadaydu aad u yar tahay aan ka fikiro sidii baashanka iyo waxa igu jira aan maruun u gaari lahaa guusheeda sanad kadib hawshii ay suurta gashay waxaana mushaarkayga ugu horeeyay la sheegay 6 bilood kadib markii aan joogo telefishinka Home Cable inuu noqon doono $100 ولكن $100 runtii maanta waxay jirayso balse waqtigaas qiimo weyn ayaa aniga agteeda ka lahay waxaana waxa mushaarkii ugu horeeyay ee aan ku bilaabo shaqadii ugu horeeyay noloshayda qabto taasi oo ay shaqadii aan ka bilaabay telefishinka Home Cable 12 sano ka hor maalinba maalin kadib waxa ay ahayd
mid sii qurux badnaanaysa isla markaasina igu sii ridaysa waddada aan u baahnaa taasi oo ahayd inaan maruu ka midho dhaliyo in warbaahinta aan noqdo dadka ku jira isla markaasina la wadaago bulshadayda wax iyaga wax u taraya isla markaasina faa'iido u noqonaya 2018 waxaan u duulay dhankaas dalka Turkiga halkaas oo waxbarashadeedii qayb ka mid ah ku soo qaatay kadib waxaan dalka dib ku soo noqday 2022 waana markii ay ku dhalatay inaan Ayub Show bilaabo sidaan horeydu ku sheegayna waxa Ayub Show ka bilaabmay hal telefoon oo ay hadiyadii siisay walaashay ilaa haatana sidii Ayub Show ku socdaa barnaamijkan runtii waxaan ugu talagalay isla markaasina aan rabay inaan kaga hadlo inay tahay in baashanka iyo waxa aad rabto inaad samayso ama waxa aad ku fiican tahay si kasta iyo caqabad kasta oo hor istaagta uu yahay wax haddii aad rabto inaad kamera dhaliso aad kamera dhalin karto ma oran karno halkii aynu rabnay ayaynu weli gaarnay balse waxaanu bartanka kaga jirnaa waddadii guusha iyo waddadii aanu jeexanay 14 sano ka hor adiga daawade waxa laga yaabaa inaad rabto inaad noqoto macallin fiican dhakhtar wanaagsan pilot fiican engineer fiican oo ku wanaagsan dhanka dhismaha guryaha intaba waad noqon kartaa kaliya ta waddada ayuun baa dheer inta hore iyo bilowgu way adag yihiin laakiinse haddii aad u diyaar garowdo waxa aad rabto inaad qabato 100% waxaan rabaa inaad guuleysanayso su'aashan runtii aad ayay ugu dhex guuxaysay daawadayaasheeda muddo badan waxay ahayd su'aalaha u badan ee la soo weydiiyo waana tasawabtay maanta inaan hal sheeko kaga hadlo ee kaliya taa waxa baashanka ama qofka gudihiisa waxa ku jira rumaynteedu inay isaga kaliya ta ku xidhan tahay aad iyo aad baan u jecelahay dhammaan asxaabtayda iga daawanaysa halkan iyo Ayub Show run ahaantii waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa in qof kasta uu bilaabi karo maanta waxa uu rabo inuu bilaabo iyo waxa uu rabo inuu jecel yahay kuma xidhna guush inaad lacag badan haysato kuma xidhna guush inaad qalab badan iyo hanti badan oo waxaad ku bilaabayso inaad haysato kaliya ta waxay kaaga baahan tahay joogtayn iyo go'aan adag dhammaan asxaabta Ayub Show ku xiran waxaan kula talinayaa shayga runtii aniga Ayub ahaan noloshayda bedelay kaasi waa consistency joogtayn uma baahnid inaad aaminto dadka kale adiga waxay ka aaminsan yihiin waxaad u baahan tahay inaad qaado waddadaada haddii lagu leeyahay macallin baad ku qurux badan tahay balse adigu aad aaminsan tahay inaad ku wanaagsan tahay arday injineer ah isla markaasina rabo inuu bulshada iyo bilicdeeda iyo aqoonteeda wax ka bedelo inuu noqdo dooro waddadaas runtii marka aad wax bilaabayso hadallo badan waad arkaysaa balse muhiimaddu waxa weeye inaad qaadato adigu go'aankaaga adaadka iyo aadka ugu kalsoon tahay waddada guushu aad bay u adag tahay Ayub ahaan aniga laftigaygu ma aaminsan inaan weli guuleystay balse waxaan dhexda kaga jiraa waddadii aan sharaxday 14 sano ka hor waxaan filayaa daawada adiguna inaad samaysan karto waddadaada isla markaasina aad gaari karto halka aad jeceshahay inaad gaadho kaliya ta waxaan ku soo gabagabeynayaa sheekadani barnaamijkeena oo runtii ka duwan barnaamijyadii sheekooyinkii Ayub Show aan horeydu kula wadaagay la jeclo walaalka waxaad naftaada la jeceshahay waddada guushuna runtii bilowga ayaa adag haddii aad bilowdid waxay ku dhammaan kartaa wax wanaagsan waxa aad jeceshahayna samee aamin naftaada hadda bilow beri ha u dhigan laga yaabaa inaad beri noolaanba aad iyo aad baan idin jecelahay asxaabtada qaaliga runtii waxaan dhammaantiin rabaa inaad guulaysataan waqtigiina ka faa'iidaysataan gaar ahaan dhalinyarada da'doodu tahay 18 ilaa 30 oo ah marxalad aan ku jiro horena u soo maray good luck dhammaantiin aad baan idin jecelahay